الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها. afar shay qof kastoo muslima ayaa laga rabaa inuu iimaankiisa ilaalsado, inuu iimaanka jadiidiyo, inuu iimaanka ziyaadsado, iyo inuu iimaanka caalamka o dhan dadka ugu yeedho iimaanka. diintaada ilaalso, diintaada mar walba cusboonaysiiso, diintaada baro. diintan caalamka o dhan baa ilaahay ugu talagale risaalada caalamka siday u gaari lahayn adiga laga rabaa. diinta ilaalso, kuna qanac, diinta ku qanac. sayidina cumar radia allahu canhu ayaa nin yahuudi oo saaxiibi ay yihiin oo reer bani quraydu madiina ku soo maray. kalimaad diintii nebi muuse ka mida ayuu ka soo qoray. wuxuu soo galay masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam. cabdullaahi binu thaabit iyo nebiga wada fadhiya buu u yimiday. alaa acraduhaa calayka yaa rasuul allah buu yaa rasuul allah ma kuu bandhiga nin reer bani quraydoo saaxiiba nahay baan kalimaad tawraada ka soo qoree. fatagayara wajhu nabiyi calayhi salaatu wasalaam, midabkii nebiga isbedelay. bal u fiirso, midabkiibaa isbedelay, midabkii rasuulka. cabdullaahi baa yidhi yaa cumar thakiladka ummuk waydaa gablantee nebiga wejigiisa miyaanan cadhada ka dareemin? cumar u naxay, warqadii buu tuuray. wuxuu yidhi radinaa billaahi rabban, ilaahay rabbinimadiisa raalli baan ku noqonnay. wa bilislaami diinan, diinta islaamkana waan ku qanacnay oo raalli baan ku nahay. dhaqan ahaan raalli baan ugu nahay, caqiida iyo cilmi iyo cibaadaba. wa bimuxamadin sala allahu calayhi wasalam rasuulan wa nabiya, nebi maxamed risaaladiisa iyo nebinimadiisana waan ku qanacnay buuhi, raalli baan ku nahay. fasura, nebigu wuu farxay, mambarkiibuu fuulay. wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, ismac yaa akhi, dhegayso. dad aan waxba ahayn oo laysku ekeysiiyo, dadkeenu isku ekeysiiyaan iska daaye. undur hadalka nebigu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam. law asbaxa muusa fiikum uma itabactumuuhu wa taraktumuunii ladalaltum buu yidhi. haddii maanta nebi muuse uu nidhex iman lahaa anoo inidhex taagan oo aad isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi. antum xadii min alumam wa ana xadukum min annabiyiin. nasiib ayaad ii tihiin buuhi ummadihii aan ka helay, nasiib ayaan ini ahay buuhi nebiyadii aad ka hesheen buu rasuulku yidhi. haddii nebi muuse maanta uu iman lahaa, uu shareecadiisii tawraad la iman lahaa, ood aniga iga tegi lahaydeen ood isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi. antum xadii min alumam, ummaddii ummadaha ugu khayr badnayd, ummadda abuuritaanka ummadaha ugu dambaysa, jannadana gelitaanka ugu horaysa, ummadda jannada inta badan degaysa maadaama oo tihiin, nasiib ayaa inagu helay buu nebigu uhi. nasiibkayga ay kii siiyey maadaamoon aniguna ahay nebigii nebiyada ugu dambeeyey, imaamkii ambiyada maadaamoon ahay, nasiib ayaad igu hesheen buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. ee shareecadayda iyo diintayda iyo milladayda iyo sunnadayda iyo dariiqadayda ku qanca buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. wax lagu badilan karaa ma jiro dariiqadiisa. ummaddiisii baa ilaahay naga dhigay, ummaddan waa ummadda ummadaha ugu khayr badan. ana wuxuu nebigu yidhi xurimat iljannatu cala alambiyaa xataa adkhulahaa, jannada nebiyadu geli maayana waa laga xarimay ilaa anuu aan ka gala maahine. wa xurimat iljannatu cala alumam xataa tadkhula ummatii, ummaduhuna jannada geli maayaan ilaa ummadaydu ay gasho maahine. qabuuraha ayuu nebigu ziyaartay baqiic, markaasuu u duceeyey. wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii, waxaan jeclaaday buulan jeclaysan lahaa inaan walaalahay arki lahaa. asxaabtu waxay ku yidhaahdeen awalasnaa ikhwaanaka, miyaan anaku walaalaha ahayn? laa antum asxaabii, ininku asxaabtay baa tihiine walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ee rumayn doona iyo kuwa aniga arag buu rasuulku yidhi. sideed u garan doontaa? saxaabadu waxay yidhahdeen dadkaas ma abad arakin adigu iyo kuna kumay arag, sideed u garan doontaa qiyaamaha
halkay wajiga dhulka dhigayeen ay weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka igu iman doonaan buu rasuulku yidhi 120 saf ayaa jannada galaysa buu nabigu yidhi dadka ahlu jannuhu waa 120 saf 8 saf baa ummadayda buu rasuulku yidhi atardawna an takunu ruba ahli aljanna qulna bala abdullah ibn mas'ud baa yidhi nabiga maalina uu riyo wuxuu nagu yidhi raalima ku tihiin ummadaha marka loo qaybiyo 4 qaybood dadka jannada galaya 4 marka loo qaybiyo qaybna noqotaan raalima ku tihiin asxaabtu waxay yiraahdeen ha atardawna an takunu thuluth ahli aljanna ahlu janna marka 3 loo qaybiyo qaybna noqotaan ma ku tihiin raalli baan nahay yiraahdeen markaasuu nabigu yidhi walladhi nafsu muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna waxaan rajaynayaa oo ku rajaweynahay kay abuuray baan ku dhaartee jannada inaad kala badh idinku degaysaan baan ku rajaweynahay buu rasuulku yidhi ilaahay ummadiisii buu inaga dhigay ilaahay uu ina karaameeyey wuxuu nagu karaameeyey waa maxay ummadihii hore shay keliya unbaa laga rabay keliya bas ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan ama ummadan 2 shay baa laga rabaa 2 shay ilaahay inaad ka yaabto waa laga rabaa ilaahay inaad caabuddo waa laga rabaa aakhiradan inaad u shaqaysato waa laga rabaa khalqiga adduunyada kugu nool ee bashariyada inaad arinta ugu yeedhana waa laga rabaa مقر النبي وعدي ألا لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم مرب النبي عمري سحجي مركلية مركينا وحيري أنا النبي قدم بي مجرو ومدني قدم بي سانا مجرتي ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة كينا ما انت لجوغي مغليو كينا ما قارسيبو رسولك عليه الصلاة والسلام بلغوا عني أدوا عني رحمكم الله الله ينين حارسي أما أنا ذا قادوا عالم كيغا قارسية اللهم انصر من نصر دين محمد إلهو نكي الدين تيدا أقرقار برسولك ودي نظر الله امرأ سمع مقالتي مالك وجيدو أي مدوباني أن بنك قيامه وجيكي سألها نوريو نكا هل آيات أما هل حديث يقام مغلي سدو يقام مغلي ومدو قارسيه ورسولك عليه الصلاة والسلام ومدن ومد الأحي دورتي شرفتها يا كرامتها ومدن وحي كويالتي وشقد نبينا عليه الصلاة والسلام shaqadaas markay caalamka shaqada laga tagayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaan dalkeena ku dhacday wax kala maaha waa tarku dacwada markii laga tagay dhibaata timiday إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم مركز حولها حول دقتي سكر حول دقتي أدو جيستان هي بيرها قودتان تجارة أدو كعدان شغدي دينتي دلالكي هلقي دينتي أتكتكتان إلى هاي الدلي بنهوين يا دلي نقصار ما يدلي نقصي بمايو إلا دينتي نادو نقطان ما هنا إلى دينكم بل إلى دينكم دينتو وحي باقي كن نغنسا صلاة ماها صونك ماها حشك ماها دينتو وحي باقي كن نغنسا في كل زمان وإن لها جهد الدعوة مرة اللي مركي دين دراسو دعبا إلى هاي وحصو صار علماء ربانيين مر لبات سو عصبوني سيسا توحيد كي إيمانك يا أخلاق دي إسلام كلها نيكا مؤذن كامركو إعلام يبو رسولكو يري شيطانكو قفكو وكبحا لحية وان ميلبو سيسو عدا ساقو حاجة دم النقص كسي دينا يا مركو مؤذنكو إعلان كدما ينا وصولا ما قفكو عيو صوغلا إقامة دمركا لقود افتنا الشيطانكو وبحصدا مركا إقامة دماتنا قفكو صوغلا صلاة دي سي قفكي بكرا نحمرا وحيو إلو ويبو حسوسيا إلا قفكو كقرن وايوحبتو كذيبا صلاة دوا فرد إذانكو والسنة شيطانكم محو صلاة وقبح سنة ياهي وصنها وقبح سنة يا لأن أذانكم دعوة صلاة وعبادة ويان افهم المسألة ولكن يا مسلم كو فهم تكليتكم بالداريسو كنا ما تقلي سعديقية مجتمع عقبة ودعوة ويان عمر من مربو النبي يقول توب شيطانا توقع كله كسي وعدا لأن عمر صاحب الحق بها صاحب الحق شيطانكو كما عبسوني عبادة صلاة شيطانكو وحو كعبسوني وآذانك اللهم رب هذه الدعوة التامة لأن آذانك ودعوة ما يسترن ويان صدا درتي حدان دونينا إنا بدانو فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء دعوة محاك الله لقوها ليا فساد كدعايا عقوبة إيمان يسنيك داعيقا الدين تكشغيا وبدباديا إمام بخاري كتاب كيسا وحكوسا ساري نبي عليه الصلاة والسلام يا إلي قريت با إلهي وصدر ملك سو هلاك با لغيري قريت سو هلاك ملقي مركو يمدي وحوارك الناس صالح وعابدة أو إلهي سفي عن علاقة ولا لا مركاسو يا ربي يلي قريت دانا دي قتل سو هلاك أدون صالح وعابدة كجري واسدي إلهي يحيري فابدأ به عذابك حقي سكبلاب لم يتعمر وجهه ساعة فيا dadka aniga ya caasina ay geyrkii caabudaya ee macsiyada dhaxda baalanaya hal mar kaliya wajigiisu kama doorsoomino kama murugoone uquubadii cadaabka xaqiisa ka bilaabay
ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه. فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مضرودا ولا محروما. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. أمرتنا فتركنا، نهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. يا عزيز في ملكه ويا حكيم في صنعه، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.